بسم الله الرحمن الرحيم warbixinteenan maanta ayaan waxaynu ku dul istaagaynaa Israa'iil oo soo food saaray walwal aan hore loo arag iyo waliba maxay yihiin 15 qodob oo markaasi Trump u soo bandhigay Iran si ay heshiis ay ula galaan aan ku bilownaa warbaahinta Israa'iil ayaa waxa ay daha ka rogeen in ra'iisul wasaare Netanyahu uu ku nool yahay xaalad walwal oo aad u daran taas oo salka ku haysa suuragalnimada in Mareykanka uu heshiis la gaaro Iran heshiis aan dan ugu jirin Israa'iil oo danahoodana u adeegaynin warbixinada ay qorayaan warbaahinta Yahuuda ayaa waxa ay xaqiijinayaan in walwalkani kaliya uusan ahayn taxriir siyaasi waa wax dhab ah oo markaasi ka jira gudaha qaybaha go'aanada lagu gaaro Israa'iil miiskoodana saaran yahay gaar ahaan qaabka ay ku bilowdeen iyo waliba qaabka ay ku socdaan wada hadallada dhexmaraya labada dhinac waxyaabaha Israa'iil ay ka baqayso ayaa ah in la gaaro heshiis aan raali gelinaynin danahooda iyo waliba damacyadooda sida uu ku waramayo channelka 12aad ee Israa'iil ay leedahay in Netanyahu uu ka baqayo in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu heshiis la galo Iran oo aan xaqiijinaynin danaha iyo waliba hadafyada Israa'iil gaar ahaan arinta ku saabsan hubka nuclearka Iran iyo waliba doorka Tehran ee mandiqada Israa'iil kaliya kama baqayso heshiiska waxay sidoo kale ka baqaysaa in heshiiskani la gaaro iyada oo aan waafiqin ama waxyaabo ka hor imaanaya aragtideeda amni saadaasha la bixinayo ayaa waxa ay tilmaamaysaa in dagaalka Israa'iil iyo Mareykanka ay ku hayaan Iran uu sii socon doono 2 ilaa 3 isbuuc ilaa laga gaarayo inta uu bilaabanayo wada hadalka xabad joojinta tani ayaa micnaheedu tahay in wada hadalka uusan micnihiisa ahayn joojin degdeg ah oo markaasi dagaalka gobolka laga joojinayo gobolka ayaa waxa ka socda xaalado dagaal isa soo taraya ka hor inta aan la gaarin heshiis xabad joojin ah oo xaqiiqi ah Mareykanka ayaa waxa miiska uu soo saartay 15 qodob warbixinada ayaa waxa ay tilmaamayaan sidoo kale in Washington ay u soo bandhigtay Iran soo jeedino kaamil ah oo markaasi ka kooban 15 qodob waxaana kamid ah dib u furida marinka Hormuz iyo waliba damaanad qaadida si nabad ah uu ku maro shidaalka halkaasi ka gudbaya iyada oo midaasi ay jirto ayaa ilwareedyo Israa'iil ah ayaa waxa ay xaqiijinayaan in heshiiska uusan ahayn mid degdeg ah midaas oo cagsi ku noqonaysa waxa soconaya ma dagaal masaalix ayaa socda mise mid ah dib u qaabaynta gobolka waxa haatan soconaya ayaa waxa ay daha ka rogayaan in dagaalkani salka uu ku hayo dano iska soo horjeeda oo ay adag tahay fahamkeeda Mareykanka ayaa waxa uu doonayaa in la soo afjaro dagaalka khasaarahana la yareeyo Iran ayaa iyadana waxay raadinaysaa qaab ay ku ilaashato danaheeda gobolka Israa'iilna waxay ka baqaysaa in iyada oo taagan laga danaysto ama ciyaarta laga saaro